بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد إلهي baa kelidii mahadle madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi maanta oo ay taariikhdu tahay shantii bishii afraad 2026 wuxuu soo saaray 5 wareegto hal wareegto oo xilka qaadisa iyo 4 wareegto oo ah magacaabid wareegtooyinka madaxweynuhu waxay u dhigmaayeen sidan ku socota abubakar cabdiraxmaan good wacays wasiirkii hore ee wasaaradda horumarinta biyaha jamhuuriyadda somalilan ku socota maxamuud ciga yuusuf wasiirkii hore ee wasaaradda horumarinta beeraha ee jamhuuriyadda somalilan ku socota jamaal maxamed jaamac axmed wasiirkii hore ee wasaaradda isgaadhsiinta iyo teknolojiyadda jamhuuriyadda somalilan ujeeddo xilka qaadis mudanayaal sida aad la socotaan xilalka qaranka ayay dabcigooda tahay meerto iyo in hadba loo igmado cidda ugu habboon ee gudan karta waajibaadka saaran sidaas darteed waxa aan go'aamiyey in laga bilaabo taariikhda maanta aan idinka qaado xilkii aad u hayseen qaranka jamhuuriyadda somalilan waxa aan idinka mahad celinayaa muddadii aad xilka hayseen iyo dadaalkii aad geliseen gudashada waajibaadka qaranka waxaanaan idiin rajaynayaa guul iyo horumar dambe allah mahadle cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan taasi waxay wareegtadii xilka qaadista wareegtada labaad waxa weye waa magacaabid waxaana u dhignayd sidan markii aan arkay qodobka 9aad ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan markii aan arkay aqoontooda kartidooda iyo waayo aragnimadooda markii aan tixgeliyey ahmiyadda ay wasaaradaha hoos ku xusan u leeyihiin oo adeegidda dadweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo dhismaha qaranka markii aan ku qancay inay hanan karaan mas-uuliyadaha ka dhalanaya xilalka hoos ku qoran markii aan sameeyey la tashi waxa aan go'aamiyey in laga bilaabo taariikhda maanta aan xilalkan u magacaabo mas-uuliyiinta hoos ku qoran 1 mudane aadan geedi qayaad inuu ahaado wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha ee jamhuuriyadda somalilan 2 mudane maxamed cabdilmaalig axmed inuu ahaado wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha ee jamhuuriyadda somalilan 3 doctor cabdisalaan xuseen cawaale inuu ahaado wasiirka wasaaradda isgaadhsiinta iyo teknolojiyadda ee jamhuuriyadda somalilan 4 garyaqaan barkhad jaamac xirsi batuun inuu ahaado wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ahna afhayeenka xukuumadda jamhuuriyadda somalilan allah mahadle cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan wareegtada saddexaad ee magacaabistu waxay u dhigan tahay sidan markii aan arkay qodobka 9aad ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan markii aan arkay aqoontooda kartidooda iyo aragnimadooda markii aan tixgeliyey ahmiyadda ay wasaaradaha hoos ku xusan u leeyihiin oo adeegidda dadweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo dhismaha qaranka markii aan ku qancay inay hanan karaan mas-uuliyadaha ka dhalanaya xilalkan hoos ku qoran markii aan sameeyey la tashi waxa aan go'aamiyey in laga bilaabo taariikhda maanta aan xilalkan cusub u magacaabo mas-uuliyiinta hoos ku xusan 1 mudane mukhtaar xaaji maxamuud faarax oo ahaa wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda horumarinta beeraha jamhuuriyadda somalilan inuu noqdo wasiir ku-xigeenka cusub ee wasaaradda horumarinta biyaha jamhuuriyadda somalilan 2 injineer maxamed cilmi xuseen huuno oo ahaa wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda maalgashiga iyo warshadaha inuu noqdo wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoyska ee jamhuuriyadda somalilan 3 mudane maxamed muuse xaaji cabdi galaydh oo ahaa wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoyska inuu ahaado wasiir ku-xigeenka cusub ee wasaaradda waxbarashada barbaarinta iyo sayniska ee jamhuuriyadda somalilan 4 mudane maxamed yuusuf ibraahim faacuul oo ahaa wasiiru dowlihii hore ee wasaaradda waxbarashada barbaarinta iyo sayniska in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wasiir ku-xigeenka cusub ee wasaaradda maalgashiga iyo warshadaha ee jamhuuriyadda somalilan 5 doctor maxamed awdaahir ibraahim oo ahaa wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada inuu taariikhda maanta laga bilaabo oo ahaado wasiir ku-xigeenka cusub ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee jamhuuriyadda somalilan 6 marwo samsam maxamed saalax yacniile oo ahayd wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda somalilan inay ahaato wasiir ku-xigeenka cusub ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee jamhuuriyadda somalilan
toddoba injineer maaliki cabdi xasan xirsi oo ahaa wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda isgaadhsiinta iyo tiknolojiyada inuu laga bilaabo taariikhda maanta ahaado wasiir ku-xigeenka cusub ee wasaaradda horumarinta beeraha ee jamhuuriyadda somalilan. allah mahadle cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan. wareegtada afraad oo ah iyadna magacaabid waxay u dhignayd sidan: markii aan arkay qodobka 9aad ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan, markii aan tixgeliyey ahamiyadda la taliyaha arrimaha dibadda ee madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan u leeyahay qaranka, markii aan ku qancay aqoontiisa, kartidiisa iyo waayo-aragnimadiisaba, isla markaana inuu hanan karo mas-uuliyadaha ka dhalanaya xilkan, markii aan la sameeyey la tashi, waxa aan go'aamiyey in doctor maxamed cismaan fadal laga bilaabo maanta uu ahaado la taliyaha sare ee madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ee arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga. allah mahadle cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan. wareegtadii shanaad oo madaxweynuhu soo saaro oo ah magacaabid iyadna waxay u dhignayd sidan: markii aan arkay qodobka 9aad ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan, markii aan arkay qodobka 3aad ee wax ka beddelka iyo kaabista xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda xeer lambar 14/2011, markii aan arkay in xubintii hore ay bannaysay jagada kadib geeri ku timid, markii aan ku qancay aqoontiisa, kartidiisa iyo waayo-aragnimadiisa, isla markaana uu hanan karo mas-uuliyadaha ka dhalanaya xilkan, waxa aan go'aamiyey in laga bilaabo taariikhda maanta aan u magacaabo mudane khadar xaaji yuusuf cabdilaahi inuu noqdo xubin ka mid ah guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranka ee jamhuuriyadda somalilan. allah mahadle cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan.